بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان قبل لونه ورقيس كاس أن نقول كلها يمن أو عن بالله سيديتن يشنتي aan bilaabay muddo dheer in soconayay ilaa sagaashanaadkii iyo dhowrkii soconayay magaalada Sanca gudaheeda aan ka bilaabay oo aan deganaa 19 sano. waxa igu sababayna wuxuu ahaa sabab qadiyadeed. wargeyska waxa magaciisa loo jeeday al-islaax. dawladda ayaa lahayd talab baan u gudbistay waa laga ogolaaday. wargeysku wuxuu soo bixi jiray maalin khamiisa. maalinta khamiista markuu soo baxo nuqulkii iyo wixii aan ku qoray inta ay ku qoran tahay joornaalka intaan qaado yaan wareejin jiray oo magaalada intii aan gaari karo intuu ka dhamaanayo lug baan ku geyn jiray. mana iibin jirin aniga lacag intaan ka soo bixiyaan dadka ku wareejin jiray. dukaankii aan u dhiibo ama ruuxii aan siiyo waxaan odhan jiray lacag kaama rabo akhriso noqolka akhriso maqaalka akhriso. sidii aan u waday markii dambe dadkii markaan in badan ku celceliyey joornaalku noqolku wuxuu ka sheekayn jiray juqraafiga gobolka iyo taariikhihii uu soo maray ee hore ee waaweynaa ee halgan noqoya iyo wuxuu noqdaba min Axmed Gurey ilaa yoomina hada. juqraafiga dadku dhulku intuu leeyahay juqraafigiisu cadad sukaankiisa wixii hawlihii la soo maray oo dhan dadku si ay u ogaadaan ilaa Yemantu waan isku dhownahay aadna uma garanayaan wadanka uma garanayaan xagga wadanka gobolkeena hawlihiisa waxa aad ula socdo oo yaqaana Ciraaq oo niman ay madax ka ahayeen oo aadan wanaagsan Axmed Xasan al-Bakar iyo Saddam Hussein. kuwaas iyaga in loo sharaxo ardayga iska badaa nin weyn oo ardayga in loo sharaxo xataa uma baahna. marka nuqulkaas aan geyn jiray aan wareejin jiray. cid igu caawin jirtay ama igu garab galay iga jirtay ma ay jirin. waxaa dhacday markii dambe dadkii aan u geeyey markay akhristeen inay qaar i weydiiyeen yiraahdeen gobolkaas waan aadaynaa meel loo maro ma jirta aan tagnay. anigu waxaan ku wada marka inaad tagtaan inaad u qabataan min kama rabo inaad ogaataan baan rabaan doonayaa inaad yahay juqraafiga meesha dhaco iyo sukaanka iyo dhibaatooyinka iyo xabaad iyo wax allaal wuxuu ku sugan yahay inaad ogaataan oo bayaan doonayaa kaliya. saasaan ayaan soo gabagabayn jiray. nuqulkiina wuu soo dhawaaday ilaa 9 buu soo gaaray sidii buu u socday. marka waxa weeye Soomaalida halka degan in badan oo meesha joogtay way ka wareysay laakiin ma aynan danaynaynin oo diyaw dadka qaar bayna khusayniba inkastoo wax Soomaaliga wixii Soomaaliya oo dhan kulli ay isku mid iyo nafba isku mid yihiin. Soomaalidu waa dad aad u dambeeya weeye. adduunka hadda meel ayagu say u fikiraan adduunka ma jiro. waa laga gudbay waxyaalaha hadda Soomaalidu ay ku fikirayaan qoyska. arrintii marka sidaas ayaan bariga ku shaqeeyay muddo dheer. wax uu kulfayna waad garanaysaa waa gobolku xaaladaha uu ku sugnaan bay ahayd. arrimaha biriga siyaasan ayaan u furiyay. sanadkee ayay ahayd marka maqaalka aad wareejin jirtay? 1980 baan bilaabay. 1980 baan bilaabay ilaa iyo 1990 way socotay intaa way socotay. joornaalku wuxuu soo bixi jiray maalinta khamiista kaliya. marka wax joogto ah maalinta khamiista soo bixi jiray weligiiba wax yoomiyana ma ahayn. maalinta khamiista soo bixi jiray aad baan u tiro badnaa. saas oo maqaayim nidaamkiisa iyo